marka ka faa'iideyso dhallinyaranimadaada inta dhalinyaro tahay oo shaab tahay dhallinyaranimada maxaa ka mid ah waxa ka mid ah xadiiskii saxiix ahaa isagana oo muttafaqun calayh sab'atun yudilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu Ahmad Khair iyo sheekada iyadina kala dhexmarta ka sheekeeyay marka walaalayaal dhammaanteenba dee saaxiibkay maxamed wuxuu yiri isagu buug baan ka qorayaa arrinkaas marka insha Allah ta'ala buugiisana waa sugi doonaa gabdhaha aad baan idin jeclahay TikTok baan ka leeyahay sumcadaada gabadhnimo dilayay ka fogaan ii ballan qaad waayo haddaad quruxdaadii soo bandhigto bannaanka hadhow dee wax laga iibsan maayo la soco laakiin haddaad qariso oo xijaabku kuu saaray tartan baa loo soo gelay marxabada maxay laakiin reer boorobadana naga wada maraane waxaan u yeelayaa makana Sheekh Xasan Khayre bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman katiira marka hore ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadle ilaahay baan u mahadnaqaynaa allaha inoo suurtageliyay inaan halkan isku imanno innagoo wax iska xasuusinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa wax kamid ah marka labaadna waxaan aad ugu mahadnaqayaa culimada Hargeysa inaga soo booqatay Sheekh Yaasiin hogaaminayo iyo Sheekh Cabdinaasir oo Booramiya Hargeysa wada iyo culimada kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa una soo dhaweynayaa labada inaan ee dhalinyarta ah culimada fankii ay ku jireen dhinac kale u bedelay waa Maxamed iyo Ahmed ilaahay khayr siiyo inta markaan shukriga iyo mahadnaqaan ku dhaafo waxa la yiri maqaam kastiba maqaal buu leeyahay ama wax ku haboon buruntii leeyahay waxa ila tahay in kelmad kooban in laga yiraahdo munaasabadan oo kale ama ay tahay fursad runtii aad iyo aad u qaali ah dadku waxyaabaha ay aadka ugu mamman yihiin ama in badan ba dhalinyarta aadka u baabiyay waqtigoodii lumiyay maskaxdoodii iyo maankoodii runtii dhaawac badan u geystay qaarkood kuba dhaga beeleen waxa ka mid ah heesta oo dhibta ay leedahay runtii ayna aad u yarin aad u badan leh sharcigeennuna oo meel dhigay waxa heesaha la yiraahdo heesta ama gabay ama shicir wuxuu doonaba ha noqdo haddii waxa midhihiisa wanaagsan yahay oo midho wanaagsan uu leeyahay wax dhiba ma leh oo midhaha mar kastaba loo eega waxa uu yahay baa la eega bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaam ala rasuulillaahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliiman katiira waxa kelmadaydu bidillaahi kariim ay ku ursanaan doontaa waxa kulli goob waliba markaada waxay leedahay markaa maqaalkeeda iyo waxyaalaha markaa ku munaasabka kale walaalihii markaa iga horeeyay hadalladii goobtan munaasaba ku ahaa iyaga ayaa yiri Sheekh Naasir iyo Dr. Buuxane iyo markaa Sheekh Xasan Khayr way waa hadleen runtii hadalla munaasaba goobtan munaasab ku aana way yiraahdeen waxaan markaa anigu isdul taagi lahaa xadiis kamida xadiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhinac markaa ka khuseeya Ahmed Khayr oo maanta inala fadhiya iyo walaalkeen Maxamed Mubaarak oo inala jooga meeshii ay ka yimaadeen dadka wali sii jooga hada xadiisan isleeyahay isagoo xadiidku ina wada khuseeya hadana iyaga si gaar ah ayuu khuseeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiis waxa uu ku yiri isagoo inala hadlaayay iqtanim khamsan qabla khamsin shan ka faa'iideyso intaanay shan ku yimaan baa nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam shababaka qabla haramik وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وورالكن أحمد عبد الكريم محمد أحمد خير مركي وهرجيسي ما حقولي أنا شدها الصعوطان بيو وحرنيو ولا راح يقفك كبحي إن هوش وذا كذا قاطع إيانا الهرجيسي بورما يبرع كل ما قطعته مركا ما حقول نيو بورما ما حد قدرته وحقولي نيو خير بورما لا يمكن أن تشعله صور دور سعد صور يا أحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال ورتسدا صاحبك وشاغي ربنا سبحانه وتعالى ما هذا دمانتيد باسكله هل كان يسوق يا كاني سدا aad noo soo dhaweyseen noo sharafteen aad maaragtay gurihiina uga simaadeen idinkoo dhalinyaro iyo isugu jira dadkii hore iyo dadkii dambeba aad noogu soo camirteen waa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaanba culimadii ilaa Hargeysa nala socotay oo runtii wax walbaba noo horay khayrka nala garab taagnaa aniga iyo saaxiibkay Maxamed ba runtii waxaan naga go'an inaan dhalinyarada wax badan baan ku shubnay markii hore oo qaldan laakiin hadda inaan runta isu sheegno runtiina ilaahay subhanahu wa ta'ala garabsano kulligeenba waayo adoomeynu nahay adduunyadana waxaad ogtihiin waa ka tagi doonaa dhammaanteenba wacdi iyo waano waxa inoo ku filan intiina la yiri culimadu ina tiri annagu haddaanu nimi culimo mani waxaan u maleynayaa saaxiibkay carabka ka xaday annagu culimo mani arday anigu aan kolay arday baan ahay saaxiibkayna arday buu ila noqon doonaa laakiin markaanu si fiican wax u baranno oo xaalad khatar ah aanu gallo oo fadwoon karo ilaahay hana gaarsiiyo da'daas iyo cimrigaasna Allah hana gaarsiiyo intaas waa iga magaranaysaa mahadcelin waxaan kaloo mahadcelinayaa dhalinyaradii iyaduna iyo wadaadadii iyo mashaayiikhdii nagu soo dhaweeyay magaalada Boorame runtii Boorame waa dad aad iyo aad waxbarashada u jecel goobahan doortay waxay uga mid tahay jaamacaddii ugu weyneed Soomaaliya Amuud baa ku taalay waa meel cilmiga runtii loo soo doonto waxaan runtii idinka imaanu haddaan taariikhda dib ugu noqdo meel la yiraahdo berigii hore waxaad ugu ogaan jirteen inaan Dubai iyo halkaas jiro laakiin waxa soo dhan waa ka soo haajiray ilaahay dartii baan uga soo haajiray waxaan mustahayga dhigtay magaalo la yiraahdo ceelasha biyaha xagga ka xigto oo markii sunna la yiraahdo meeshaas waa meel yar waa meel cajiib ah waa magaalo ma sha Allah Yurub iyo America looga yimi xamar inteeda kala looga yimi gobolada dhan baa looga yimi hatta reer Boorame way ka mid yihiin dadka ardayda ah ee halkaas ku jirta waana fadli ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyay dhamaanteeyba inaan halkaas ku baranno qowlka ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo inta u khidmaynaysa waynu naqanaa waa hadiista iyo fiqigi iyo waxyaabihii iyo carabigii iyo kullu waxa soo dhamiba diinta iyo qowlka ilaahay subhanahu wa ta'ala ay u khidmaynayaan marka horta noo soo duceeya oo waxa noogu soo duceysaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala annagana maarta nasugo oo khayrka nagu sugo walaalahaygii kale ee runtii aad u qalbi fiican oo aanu ognahay in intooda badan ay dib ku hayso arintaani oo qalbiga ka gubanaya oo qof kasta ama markuu xanuunsado ama ay markii dib gaarto anu hadda saakay markaan hotelka saw ka soo kacay waxaan ku waabaristay Allahu naxariiste Abdi Ali Bacalwaan waad garanaysaan oo dhintay baan saaka ku waabaristay binaadamkuna waa sidaas kullu lama yaqaan waqti meel lagu soo jiro goor lagu imaanayo laakiin waxa sharaf ah qofku adduunyada intuu joogo inuu sharaf kaga tago marka ka faa'iideyso dhalinyaranimadaada inta dhalinyaro tahay oo shaab tahay dhalinyaranimada maxaa kamid ah waxa kamid ah xadiiskii saxiix ahaa isagana oo mutafaqun calay sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu maxaa ku jiray labaad wuxuu ahaa washaabun nashaa fi cibaadatillah bal fiiriya bal eega xadiiskaas waa cajiib todobada loo haraynayo maalinta aan har kala jirin macna adduunka intaan joogno waxa la yahay VIP da boqorada iyo madaxweynayaashu dadka VIP da meelaha ay geeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala meel gaar ah uu horeynaya waxa kamid ah washaabun nashaa fi cibaadatillah qof dhalinyaro ah oo shaaba 15 markuu soo gaaray oo qalinka iyo buugu isku dhacayba
waxa weeyaan wuxuu ku jiray waalidkiis macaasin jirin waalidkiis waa uu maqli jiray cibaadada loogama horreyn jirin qur-aankii wuu xafiday masaajidda safka hore u tegi jiray waqtiba kama luma jirin haddii maanta loo yeero ama la yidhaahdo kaale ciyaalku ay yidhaahdaan waqtigeenna waxaan ku luminaynaa meel maalaayacniya kama yeeli jirin marka walaalayaal dhammaanteenba dee saaxiibkay maxamed wuxuuba yidhi isagu buug baan ka qorayaa arrinkaas marka insha allahu tacaala buuggiisana waa sugi doonaa laakiin waxaan idiin sheegayaa oo aanu idiin sheegaynaa inaannu khayr idiin wadno inaad nidaamka beddeshaan inaad wakhtigiinna beddeshaan inaad heesaha iyo qurunka iyo balaayadan uu sheekh mashaayikhdu inoo sheegtay dhammaantoodba inaad iska daysaan ilaahay dartiina aad u daysaan soo dhoweyntiinna aadna soo dhoweyseen aad baad ugu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa inoo hadhay oo inoo soo gabagabaynaya walaalkeen maxamed siciid cabdi bal maxamed maanta wuxuu inoo wado ha la soo dhoweeyo falyatafadal mashkuuran ma'juura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحان الله مغلس عرض يا سيدنا أبو بكر حدن زمك الله فردي ما شاء الله أدبان لي السلام يا دماتي نورتا برشدن كرام يسن يقول حضران يبدأ بولون قلبنا لك السلام ما شاء الله مكوري والله تقبل المدى قلبن بك السلام وقت وين ويلي هي وان بلا رياض أدبان لي ستين الله يدي كرامي قال بها بورم الشيخ نقول إن شاء الله يوفقك بخير الشيخ ما يعرفه وان برانيا ما كان برتو كبعد دي ما كان سلسلة أحمد خير عن مربع آيات صغيرة ما كان هو أي سبب يسافر إلى هينا نقول اليوم ماشي عن مكملين وإذا كوعي قلنيا من بدوبيه أو ودقور له لكن من لقب حمل هين لكن هجلنا دقهنا وما فعلنا موسيقى استسارة أنت بدل أنت هو النورية ما كهروا وأنا خدمني إذا كانوا ذكر لجلنا نبتي على ذي بسمعنا ويوم وحخدم بني يسوع بني نجح على هذا وموسيقى بشيء وحنا سلا وقت دير بدلسة أحمد بيف أحمد خير هي الشركة بيدي نكرا أحمد تاك الشركة لكن مخرب أنا صار وحكى الله يقول بها يبقى هذا السوشيال ميديا وكل يوم الشيء يوم قاعدة بين السنة ما في لنا وحنا ورلها ونيوم أرساق لذات سنة ومدعان ما رتبط الروح مالي ونباته وحلقة يا بقف الشلع عاي بعدين سوى سامي ما كان سوشيال ميديا نباته بدن بولي قبلها أدوان ليش على هاي تيك توك جنبها الكل يدهرو سمعت هذا قبل نمو دلياي كفقال بلان هذا ويوم هذا تروح هذه صوب دكتور بنان هذا دي حلقة يسمى يلصق لكن هذا قريصة وحجاب بوساري تنبال لسكري أرحبنا الحياة لكن هذا بنان في نقص دكتور ما في لنا إلهي كعبسنا لما كان هراء واحد يقول شيء مثل السيد كله لكن هذا القيحان بنس والذكور هنا يقرأ على هذا قبلها الآن تنرش تقدم مستقبل وهوي ويقولون لطي وقف قالي رجل حلقة سيدكم نسائي قبلها السنة كنرس كبداي ما شاء الله أدبر لي السلامية قضب كان كهل يوا قبيالته يتقرب قبيالته وحفي عنها نيجي من هناك إلا سكرته غير إبلوها أو ده أنت لا شيء مهم ما في أنا بعشان نقدم قف كدد كروشية نفتي مشيلو الجزاء أيوم بعيد ولا كتير بلشلة تقارات شلا
oo la yidhaahdo caynkaa weyn sida maalin baan faadmo weydiiyey habeen baan ka codsaday xaaska waxaan ku yidhi kollaba haddaan anigu kula guursanay gabadh dadkaa la takooran guursanayaaye ii fasax way ii ogolaatay marka qabyaaladdu qalbigay dumisaa noloshay dayacda aad uga fogaada doorashooyinka markaad wax dooranayso maalin walba 9 hamhamle baa inoo yimaada codkaygu rida aniga saayisiiya qiimeeya qofkani dalka iyo dadka wax buu qabanaya aqoon ma leeyahay haddaan anigu isu soo taagan kaa aqoon ma leeyahay anigu dee oo qab igu rida ha iga yeelna qofkii muxtarima ee fiican ee dalka iyo dadka hagaajinaya waxna soo dhimanaya qofkaasoo kale siiya oo kale maasha allah qofkaas leedahay boorama wuu qurux badnaysiinaya weliba golaa deegaanka aad uga fiirsada waa fariin waayo dadku markay wax dooranayaan macaa hamhamlayaasha qof nin barofesor maalin macasimeebe dhawid wuu noo sheekeeyay jaamacaddu wax ka dhigaa dabadeedna ardaydii u diro wuxuu yidhi intiina labeenta ay haldoorka bal iska soo xula dabadeedna way isku yaacay waxay soo saareen intuu ku dhiiranayay ugu afmashaarsanay ninkii xilka qabanaya wanaagsanaaye daacadda waa qof aamusan marka qofka aamusan doorta ee fiican ee dalka iyo diinta iyo adiga wax ku taray